halkani waa Elias Online daawadayaal waan idinkaga mahad celinaynaa daawashada barnaamijkeennii ku aadana aan hore idinku balan qaadnay in aan halkan ku soo gudbino caawa barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay sirdoonka saacad uu lahaa basaaskii Israa'iil ugu sumcada badnaa oo waa hore inta Suuriya lagu qabtay lagu daldelay ayaa sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay soo heleen saacadiisii magaciisu waxa uu ahaa Eli Cohen oo wuxuu ahaa Yahuud Masri ah oo ay shaqaaleysiisay Mossad horaantii 60meeyadii oo ay u suura gashay in uu dhexgalo hoggaanka sare ee xukuumadda Syria inta aan la qaban ka hor wuxuu Israa'iil u soo gudbin jiray dawladda Syria waxaase markii la qabtay lagu daldelay fagaara ku yaala magaalada Dimashq ee sanadii 1965 Suuriya waxay diiday in ay sheegto halka lagu aasay meedkiisii in la helay saacada Cohen waxaa shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil hase yeeshee faahfaahinta goorta la helay iyo sida ay gacanta ugu soo gashay Israa'iil lama sheegin waxaase hadalka lagu koobay in lagu soo celiyay saacadii howlgaar ah oo ay Mossad fulisay agaasimaha Mossad Yossi Cohen ayaa sheegay in saacada uu xidhnaa Cohen maalintii la qabtay saacadu waxay qayb ka ahayd humaagii howlgalladii Eli Cohen iyo carabnimadiisii been abuurka ahayd ayuu yiri hoggaanka sare ee Israa'iil barnaamijkeeni ayaa waxa uu noqon doonaa wuxuu la baxay magac been abuur ah oo ahaa Kamal Amin Thabit oo wuxuu iska dhigay ganacsada Suuriyaan ah waxa uu suura gashay Eli Cohen in uu socdaal fara badan ku galo ama uu ku tago Suuriya bilowgii sanadii 1962 waxaan uu la saaxiibay saameyn weyn ku leh saraakiil military oo uu kalsooni weyn ka helay hadalhaynta sheekadiisu waxa ay gaadhay in dadka qaar ay yiraahdaan waxa la doonay in loo magacaabo wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga ee Syria walow aan jirin wax cadeen loo hayo arrinkaasi Cohen waxa uu suurta gashay inuu helo xogo sir ah oo Israa'iil u gudbin jiray macluumaadka uu bixiyay ciidamada Syria ee saldhigoodu ahaa buruleyda Golan oo gacanta Israa'iil maanta ku jira ayaa la sheegay in ay qayb libaax ka qaateen sidii ay Israa'iil u jabisay Suuriya dagaalkii sanadii 1967 markii uu socday dagaalkii bariga dhexe waxaa markii dambe ogaaday saraakiil ka tirsan muqaadaraadka Syria sanadii 1964 waa la dilay kadibna waxaana dil ku xukuntay maxkamad military waxaana sanad kadib lagu helay Cohen lagu daldelay Cohen fagaara ku yaala Dimashq Israa'iil ayaa si isdaba joog ah u dalban jirtay meedkiisii in loo soo celiyo hase yeeshee Suuriya ayaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ka hadlay saacada la soo helay waxa uu warbixintiisa uu soo saaray ku yidhi waxaan dagaalyahanada Mossad ku amaanayaa howlgalkii dhiirnaannimada iyo geesinimada leh ee ujeedada kaliya ee laga lahaa ay ahayd in wax lagu xasuusto dagaalyahan weyn oo gacan weyn ku lahaa nabadgelyada dalka Israa'iil dib loogu soo celiyo xaflad gaar ah oo lagu qabtay bishii May ayaa saacada waxaa lagu wareejiyay aafadii u dhaxday oo u tagay oo la yiraahdo Nadia markii la sheegay in la soo helay saacadii afkuba uu iqalalay oo jirdhac ayaa istaagtay ayay tidhi iyadoo ka hadlaysay TV-ga wadanka Israa'iil waxa ay hadalkeedii ku soo koobtay isla markiiba waxaan dareemay in aan gacantiisa taabanayo
saygaygii hore ee cadowgu iga dileen sida ay hadalka u dhigtay, waxaana ayna ka sheegtay TV-ga waddankaasi Israa'iil. sirdoonka Israa'iil ayaa sidiisaba waxa ay fuliyaan howlgallo qarsoon iyo kuwa muuqda. waxa ay bartilmaameedsadaan qof walba ay doonayaan meel walba uu dunidu uu ka joogo. laga soo bilaabo markii Israa'iil ay soo caga dhigatay dhulka reer Falastiin, dowladda Israa'iil sirdoonkeedii oo lagu magacaabo Mossad waxa ay dilal kala duwan ka fuliyeen sida wadamada Austria, Malaysia, Masar, Iraq, Kuwait, Imaaraadka, Ethiopia iyo waddanka Singapore. sida taariikhda lagu ogyahayna dowladda Israa'iil ayaa waxa ay budgetka ugu badan ku bixisaa sirdoonka iyo ammaanka guud ee ay dadkeedu dunida inteeda kale kaga hortagaan waxyaabaha ay dadyoga reer Carab ay ku fikiraan ama mucaamar ka dhan ah dowladda Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay mar walba sheegtaa in muhiimadeedii koowaad iyo tan labaad iyo mid saddexaadba ay ku bixiso sidii ay wax uga ogaan lahayd waxa ay Carabtu 24 saac ama ay mar walba ka hadlaan ama ay waxa Israa'iil ka aaminsan yihiin iyo howlgallada ay damacsan yihiin siiba dhulka reer Falastiin sida ururada ka dhisan Islaamul Jihaad iyo